tan iyo waqtigii wasaaradda maaliyadda ay ku dartay canshuurta shidaalka boqolkiiba 16 waxaa jira isfaham waa soo kala dhaxgalay gawaarilayda iyo macaamiishooda iyo ganacsatada shidaalka maadaama lacagtii horey loo qaadi jiray mid ka badan uusan macaamilka ogolayn taasina ay keentay qiimaha shidaalka oo lagu kordhiyay markii wasaaradda maaliyadda dalka ay canshuurta ku dartay shidaalka in ka badan intii ay horey u qaadi jirtay isfaham waaga dhanka ganacsi ee soo kala dhaxgalay markii canshuurta shidaalka lagu daray gawaarilayda iyo macaamiishooda iyo ganacsatada shidaalka ayaa saameeyay bulshada inteeda kale waa kuwan qaar ka mid ah gawaarilayda magaalada Mandheera oo ka hadlayo arintaasi Liibaan Maxamed Xasan baa liirada ay maxay shaqeeyay taksiilana markaniyo aad baan isku dhib qabnaa nimanka customka ay baawurta qaadnay nimanka shidaalka ka gadno muxuu yahay dibkaas ku qabtaa dibkaan isku qabna beec oo madaxweynaha hadda ku dhawaaqay hadal dhimo uu yiri waxay dhimeen mala ilaa hadeertan wali baarlamaanka lama geeynin Soomaaliya baarlamaanka waa marba dubaas mareey uu yiri 8 shilin baan ka dhimay nimankan wali waa dalacsan yihiin sidii baan ku qaadnaa customkiina meeshooda taagan yihiin oo customka caqabadaha in ka haysan caqabadaha marka wax beecsharo noo kala socdo midna ma jiraan marka maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa in dadkan sida ugu dhaqsaha badan petrol stationada ay nagala soo gaaro maadaama madaxweynaha ku dhawaaqay in barees kala dhimo ayagana meeshii taagan yihiin cabasho badan oo bulshada ka timid kadib madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa qaatay go'aan ka duwan kii wasaaradda maaliyadda ay qaadatay boqolkiiba 16 ay ku kordhisay canshuurta shidaalka waxaana madaxweynaha ka dhigay boqolkiiba 8 canshuurta shidaalka waxaana ka codsaday baarlamaanka dalka in ay ansixiyaan tilaabada madaxweynaha ayaa waxaa soo dhaweeyay ganacsatada shidaalka iyo gawaarilayda magaalada Mandheera ayagoona baarlamaanka ka codsaday in ay ansixiyaan canshuurta shidaalka qiimaha uu madaxweynaha u gooyay magacaydu ah Maxamed Abdullaahi Cabdi waxaan ahay taksiilayda magaalada Mandheera waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha shidaalku noo dhimay oo nooga dhigay boqolkiiba 8 baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa inuu asagana noo ansixiyo hadduu ka sii dhimi karo nooga dhimo waxaan ka codsanayaa inuu saas noo yeelo bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiqaadir Muxtaar Macalin waxaana ka shaqeeyaa quality energy aad ayaan ugu faraxsanahay dhibitaanka oo dhibay madaxweynaha petroolka boqolkiiba 8 waa rajo aad u fiican waaye marka hore waxaa jira caqabado badan oo tagaasileeda customerka waa isku dhibaneen laakiin hadda waxaan umaleynaa insha Allah inay arinta soo hagaagi doonto aad aan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay maxaad codsi oo jeedinay codsigan jeedinay waxa waaye in xataa wax laga sii dhimo ayaan rajeynayaa insha Allah Maxamed Sheekh Maxamed Lafagari warbaahinta Star ismaamulka Mandheera.